بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبناها دمان مدشو فديا وحكو سلام يا سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii sharaf bay tahay waana ku faraxsanahay inaan maanta goobjoog ka ahaado inaan xilka ay kula kala wareegayaan gudoomiyihii hore komishanka maamul wanaaga iyo gudoomiyaha cusub aan idkala soo qayb galo runtii waxa sharaf ah inaan runtii xafladda oo runtii shaqaale weynihii ay u dhameystiran yihiin oo ay joogaan dhammaan xubnihii komishanku aanana goobjoog ka ahaado waa iska sunnaha dawladnimada komishankana qaab dhismeedkiisa ay ka mid tahay in xubnaha komishanku runtii ay isbedbedelaan oo kolba qof uu hayo xilka iyaga oo dhexdooda iska dooranaya marba xubinta ay isleeyihiin gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen waqtiga marka iyagu ay qorsheeyeen runtii hagaysa komishanka maamul wanaaga wuxuu ka mid yahay komishanada runtii shaqada ugu dhow aan wadaagno haddaanu hay'adda shaqaalaha dawladda taasi aan ka wada shaqeyno hanaanka maamul wanaaga qaranka iyadoo laga soo bilaabayo heer wasaarad ama hay'ad ilaa ay la gaadhayo shaqaale taasi oo runtii uu sheegayo xeerarka iyo nidaamyada ay ku shaqeynayaan hay'adaha dawliga in markasta dabagal iyo qiimeyn iyo ka warhayn lagu sameeyo taasi oo markaa kor u qaadaysa hanaanka runtii maamul wanaaga ee ku dhisan horumarka hiigsiga qaranka ee la hiigsanayo runtii hay'adda oo muddooyinkii ugu dambeeyay aan si dhow wada shaqeynaynay waxaan qirayaa oo runtii aan waliba si weyn u qirayaa in gudoomiyihii hore Dayib Aadan oo runtii kaalin weyn ku lahaa hanaanka maamul daadejinta kormeeridda qiimeynta iyo dabagalka hay'adaha dawliga ah oo runtii xoog iyo waqti badan galiyay madalo fara badan iyo shirar badan aan ka wada qayb galnay hadalkiisuna uu markasta cadaa oo uu sheegi jiray runtii ereyga saxda ah ee markaa ku haboon maamul wanaaga iyo warbixinada uu hayo marka waxaan qirayaa runtii in uu ka tagay oo aan anugu aaminsanahay legacy aad u weyn oo fiican oo ahayd waajibkii saarnaa markaa inuu runtii guto liibaan oo isagana aqoon badan u leeyahay gudoomiyaha cusub waxaan rajaynayaa inuu halkaa ka sii qaado oo uu xambaaro runtii fariintii iyo mabaadi'dii uu gudbin jiray Dayib isagoo oo ka wakiila komishanka guud maamul wanaaga taasi oo runtii markasta hanaanka dawladnimada ee isla xisaabtanku runtii hay'adani ay ku jirto kaalin aad u weyn marka hore kulay liibaan kuma cusbaa shaqada sida la sheegay wuxuu ahaa in badan soo ahaa gudoomiye ku-xigeenkuna waa qof runtii si dhow ula socda qaab dhismeedka hay'adda komishanka hanaanka runtii komishanku ku socdo warbixinada ay soo saaraan uu qayb ka ahaa marka isagana waxaan ku kalsoonahay runtii inuu halka ka sii qaadi doono shaqada laga sugayaana runtii shaqo aad u ballaaran weeyaan oo u badan runtii isla xisaabtan qiimeyn iyo dabagal lagu sameeyo hay'adaha dawliga ah iyadoo la eegayo inay raaceen hanaankii xeerarka iyo nidaamyadu ay jideeyeen oo ay kow ka tahay xeerarka ay hay'adu ku dhisan yihiin oo ay laba ka tahay habraacyada ka dhalanaya marka xeerarkaas runtii waxyaabaha komishanka aan aad ugu amaanay ay ka mid tahay markasto inay hay'adaha dawliga ah sida komishaneerku uu qiray ay ku dabagalaan qorshayaashooda iyo qaab dhismeedkoodaba marka wada shaqeyn dhow oo runtii gun dheer ayaanu leenahay hay'adda shaqaalaha iyo komishanka maamul wanaagu waxaana lagu tilmaamay mararka qaarkood inaanu hay'ad kaliya isku nahay taasi oo runtii sheegaysa qaabka aan u wada shaqeynayno hay'adaha dawliga markasta waxaan dabagal ku sameeynaa oo qiimeyn ku sameeynaa oo tababarnaa shaqaalahooga oo anagu aan xoog saarnaa halka komishanku isaguna uu xoog saarayo inuu institutionadii iyo hay'adihii dawliga ahaa oo isaguna dhiso oo dabagalo oo qiimeeyo markasta shaqo wadaag ayaan runtii nahay dhowrkii sanadkii ugu dambeeyay waxa aan wada wadnay
hawlo fara badan oo runtii maamul daadajina oo aan ku daadajinayno serviceka ama adeegyada caasimadda lagu hayo inay goboladii degmooyinka gaadhaan annagu waxaan ku eegaynay dhinaca shaqaalaweynaha qaranku inay helaan serviceka loo baahan yahay oo tusaale ahaan qofka shaqaalaweynaha qarankii hadduu u baahan yahay inuu baasaboor qaato hadduu u baahan yahay inuu warqad dambiilaane helo hadduu u baahan yahay adeeg kaloo caafimaad inuu isagoo gobolkiisii iyo degmadiisii joogo uu helo si fudud u helo halka iyaguna ay ka shaqaynayeen commissionku inay iyaguna arkaan oo ay darsaan in dhammaan hay'adaha dawligii ay runtii markaa serviceka ay hayaan ama adeeg ay hayaan ay daadajinayaan oo heer gobol ilaa heer degmo iyagoo ku dabagelaya miisaaniyadda ay isticmaalaan iyagoo ku dabagelaya hanaanka runtii qaranku u jideeyay uu xeerarku u jideeyeen marka commissionku waa commission runtii aad u ballaaran qiimihiisana leh qarankana ugu jira kaalin runtii lafdhabara oo u baahan in la tayeeyo runtii anigu waxaan ahay dadka aadka ula dhacsan qaab dhismeedka commissionka ee ay ku dooranayaan hanaanka hoggaanka sare tusaale ahaan annaga madaxweynahana magacaaba madaxweynuhu baa xilka naga qaada laakiin commissionka waa commission dimuqraadiya oo ku dhisan hanaan hufan oo isla xisaabtana oo commissioneersku dhexdoodu ay runtii iska dooranayaan hoggaankooda ugu sarreeya marka dhinaca markaad ka eegto waa hanaan iyo farshaxanimo runtii aad u qurux badan oo la saadaalin karo mustaqbalka dhow in xubin kaloo commissioneerki ay iman doonto markaa hoggaanka sare marka liimaan waa la kaftamay waxaa leeyahay runtii dhinacna dadaal baa kaa saaran dhinacna inaad foojignaan badan samayso ayaa kaa saaran annagu markaan soo shaqo tegayno warqadda madaxweynuhu baanu eegnaa laakiin isagu waa inuu commissioneerska iska eego marka runtii taasi waa arrin runtii sheegaysa afar qodob waaweyn kow good governance waxaan la yiraahdaa bilarisku ka kooban yahay ama dhidibada uu ku taagan yahay maamul wanaagu in runtii iyagu dhexdoodu ay isla xisaabtamaan haddaan iyaga dhexdooda isla xisaabtan ka iman lama xisaabtami karaan markaa hay'adihii kale dastuuriga ahaa ama hay'adihii kale qaranka marka in taasina ay noqoto mid runtii ay wada shaqayn dhow ka yeeshaan xubnaha shaqaalaweynaha liibaanow laba qodob baan doonaynaa si toos ah kugu dardaaraano shaqaalaweynaha ka shaqeeya hay'adda shaqaalaha inaad saaxiib la ahaato oo maamul wanaaga inaad saaxiib dhow la ahaato inaad markasta ka warhayso tababaradooda in miisaaniyadda qaranka ee ugu jira maxay ahayd tababarkooda iyo ka warhayntoodu ay noqoto runtii mid gaadha iyaga shaqaalaha anuguna runtii waa aan xooga saarno markasta ka warhaynta shaqaalaha iyo tababaradooda iyo korqaadidoodu inay ahdaafta iyo hiigsigaan hiigsanino runtii ay tahay inaad commissionka isku hayso oo runtii commissionku ay ku noqdaan baalal aad ku duulayso inaad maamulka runtii aad hayso aad daadajiso oo runtii maamul wanaag uu ka muuqdo hay'adda uu ka muuqdo warbixinada quruxda badan ee horteyda yaala ay ka mid yihiin riboodyadii ay sameeyeen ay ka mid yihiin runtii hawlqabadkii ay sameeyeen oo wax lagu faanayo oo runtii uu ku ammaanan yahay dayb iyo tiimkii la shaqaynayay waana wax laga sugayo maalinta uu xilka wareejin doono liibaana inuu dukumad badan oo ka badan intan uu keeno runtii marka aad baan ugu faraxsanahay inaan dee goobjoog ka ahaado goob ay xilka kula kala wareegayaan waanan rajaynayaa in commissionku uu shaqadiisa halkii ka sii wada doono. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.